daawadeel qaybta labaad wararkii warbixinay dhinaca diblomaasiyadda waa aan ku bilaabo isla markaana aan ugu horeysay qaybtan daawadaasha qiimaha leh ee madaxweynaha dalkaasi Shiinaha Xi Jinping ayaa ku sii jeeda dalka waqooyiga Korea oo uu maalinta Khamiista ah ay uga bilaaban doonto booqasho rasmi ah kadib markii ay u muuqatay in siyaasadda caalamka dhinaca barigu ay isbedelayso kadib markii dalalka Mareykanka iyo Shiinuhu ay dagaal xira oo dhinaca siyaasadda wada galeen laba maalmood ayuu booqasho rasmi ah ku tagi doona magaalada Pyongyang oo 14 sanadood uusan tagin hogaamiye Shiinaha ayaa waxa uu haatan ka faa'iideysanaya wadahadaladii burburay ee magaalada Hanoi ee dalka Vietnam ku soo dhamaaday sanadkan horaantiisii kaasoo madaxweynayaasha Mareykanka iyo hogaamiyaha waqooyiga Korea ay ku kala kaceen war laga sii daayay afka TV-ga ku hadla xukuumadda hantiwadaagga ee dalkaasi CCTV ayaa lagu sheegay in ay hogaamiyaasha isweydaarsan doonaan ayaa la yidhi xasarada iyo xaaladda ka taagan gacanka kuryooyinka iyo waxaa la yidhi labada dal danaha ka dhexeeya Shiinaha ayaa haatan waxa uu muujinayaa awoodiisa iyo galaangalka uu ku leeyahay waqooyiga Korea kolka ay timaado in Mareykanka la heshiisiyo hase yeeshee waxaa dhawaanahan oo dhan jiray in waqashwash xoogan ay soo food saartay heshiiskii Mareykanka uu quudareynayay kadib markii waqooyiga Korea ay dib u bilowday duqeymihii iyo tijaabintii gantaalada ee caanka ku ahayd si kastaba ha noqotee madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa isaguna goor sii horeysay sheegay inuu dalalka Iran iyo waqooyiga Korea ku khasbi doona inay miiskooda halka yimaadaan shirka G20 ee isaguna ka dhici doona magaalada xarunta u ah dalkaasi Japan ee Tokyo iyo sidoo kale magaalada Osaka waxa xarey doona dalalka Shiinaha iyo Mareykanka waxaana la sheegay in ka hor inta uusan tagin Xi Jinping magaalooyinka ay shirarkaasi ka dhacayaan ee dalkaasi Japan uu ku horeeyay Pyongyang waxa goor sii horeysay madaxweynaha koonfurta Korea Moon Jae-in ayaa sheegay in Xi uu la kulmi doono marka uu yimaado shirka G20 isla markaana ay yeelan doonaan shir duceed madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa dhawaanahan marmarayay dalalka Japan iyo koonfurta Korea taasoo iyaduna ka carisay dalka Shiinaha halka nagala socdaan wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda daawadaasha qiimaha leh ama gaanka caalamka oo dhan daawadayaal magaalada Baghdadna xarunta militariga ee dalkaasi Mareykanka ay ku leeyihiin ayaa mar kale weerar aan la garanayn cid ku soo qaaday lagu soo qaaday iyadoo Mareykanka uu dhawaanaha oo dhan ka walacsanaa in wakiilada Iran ay dalka Ciraaq ku leedahay ay u diyaarsan yihiin inay meel kasta Mareykanka ku leeyahay duqeeyaan ayaa waxa la sheegay in laba madfac oo ah kuwa hubiyaasha loo yaqaano ay soo fariisteen aduleedka halka ciidanka qalabka sida ee dalka Mareykanka inta ku sugan magaalada Baghdad ay ku sugan yihiin halka la yiraahdo Taj Military Base wararku waxay sheegayaan in ciidan ku dhiman goobta magaalada dhinaca waqooyi ay kaga taala magaalada Baghdad 30 kilomitir ayayna u jirtaa goorsi horeysay oo bishii afraad ahaydna Mareykanku waxa uu ka cawday in lagu soo weeraray gantaalo noocan oo kala ah markaana safaaradiisa khalkhal la galiyay Mareykanka dhanka kale gorwato waxa uu ku dhawaaqay inuu 1,000 askari oo cusub u diri doono gobolka bariga dhexe madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa la sheegay in uu ku amray waaxda difaaca dalka in ay qaado talaabooyin dheeraad ah oo lagu xaqiijinayo ciidanka lixaad kale halkaas lagu dirayo 1700 askari ayaa toddobaadadii u dhameeyay kusimaha wasiirka difaaca dalkaasi Mareykanka Patrick Shanahan ayaa ku dhawaaqay habeennimadii xalay goordame in 1,000 askari oo cusub oo isugu jira ciidanka Navy ama ciidanka badda iyo ciidanka cirka iyo kuwa markaasi lugta ay tagi doonaan gobol kasta markaana sida ugu dhaqsaha badan loo diri doono waxaan haatan qalinka ku duugay ayuu ku dhawaad 1,000 askari oo cusub oo dheeraad ah si ay markaasi u qaadaan istifaacid iyo u diyaar garow ayuu ciidamadan oo isugu jira kuwa cirka dhulka iyo badda waxa ay sidoo kale tan ay soo fosaartay ayuu xiisad iyo khatar ka imaanaysa bariga dhexe ayuu sheegay markaas Shanahan oo ka hadlayay saldhigga waaxda Pentagon ee magaalada Washington maalmihii ugu dambeeyay Iran waxa ay cadeysatay weeraradaasi waxa ay sharciyeynayaan ayuu yiri mas'uuliyadda iyo markaasi wareynta dhinaca hay'adaha sirdoonka ee soo gaarsiinayso kaasoo sheegaya in habdhaqan cadaawadeed ay Iran iyo ciidankeedu ay ka wadaan ayuu gobolka gaar ahaan kuwa markaasi wakiilka uga ah xasaraynta gobolka wuxuuna sheegay in ciidankan ay yihiin ayuu ku ilaalinaya danaha Mareykanka iyo guud ahaan danaha gobolka sidoo kalena wuxuu yiri waxaan u maleynayaa in lagu jiro ayuu xaalad khatar ah isla markaana in xiisadda iyo iskorimaadka dagaal uu markasta qarxi karo tigniintan Mareykanka ama hadalka Mareykanku soo saaray ayaa noqotay markaasi gas dab lagu shubay ayadoo xiisaddu ay cirka isku shisheeyayso dhaqdhaqaaqa ciidanka loo yaqaan Al-Quds ee Iran ayaa la sheegay in ay kor loo qaaday badda Hormuz ama gacanka Hormuz iyo badda markaasi Persianka sidoo kalena dawladda
dalkaasi Iran ayaa la sheegay inay rakabtay inta badan gantaalaha difaaca ee dalkaasi halka nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinii diblomaasiyadda daawasha qiimaha leh horta aan ku noqon qadiyadii Maxamed Mursi daawasha qiimaha leh dhibashada markaasi Maxamed Mursi fadeexada guud ee caalamka islaamka ay maanta baday waxa dheer Maxamed Mursi markii uu xilka ku guuleystay ama xilka loo doortay sanadkii 2012 waxa jiray in uu dalkaasi isla siyaasad ahaan waxa isbedelay horta markii uu horeysay waxa isbedelay isku dheelitirkii siyaasadda gobolka waxaana gobolka seen ognahay mar walba ku tartami jiray dawladda Qatar iyo Turkiga marka caalamka islaam timaado isku dhinac ah iyo dalka Saudi Arabia iyo isku taga Imaaraadka Carabta isku dhinac ah waxa markaasi dalka Masar uu muhiim u ahaa mar walba waxa weeye wadalka dhinaca awoodda military ahaan ugu saameynta badan dalalka khaliijka sidoo kale wadal dadka ugu badan ama populationka ugu badan aqlabiyadda dadeed ugu badan ee Carbeed haysta sidaa daraadeed markii Maxamed Mursi uu yimid wuxuu la siyaasad noqday ururkiisa iyo ururka dalkaasi Turkiga waa isku magacba labada ururada cadaaladda iyo horumarinta ayaa la yiraahdaa ururka walaalaha muslimiinta markii dambe ay iska bedeleen marka waxaa markiiba isbedelay markaasi jawigii halkaasi sidoo kale waxaa jiray in marka uu imaanayay isagu talada qabsanayay muddo 5 sanadood ah in uu jiray wax loo yaqaan markaasi blockade ama go'doominta magaalada Gaza oo Israa'iil iyo dawladii Maxamed Xusni Mubaarak ee Masar ay wada go'doomiyeen waxa uu markiiba khafifiyay arintaas isla markaana wuxuu markiiba sameeyay go'aamo waaweyn oo uu doonayay in markaasi Falastiin wax laga qabto oo runtii wax loogu hiiliyo oo hiil weyn loogu sameeyo sidoo kale wuxuu asagu markiiba qaatay ahayd dhinaca dib la'aanta ama istaraatiijiyada loo yaqaan ama zero problem strategy policy waxa loo yaqaan afka qalaad lagu yiraahdo waa siyaasadda dhinaca istaraatiijiyada ee dib la'aanta iyo markaasi isqaad la'aanta waxaana uu markii ugu horeysay uu casuumay hogaamiyaha dalkaasi Iran ama madaxweynaha dalka Iran ayaa halkaas booqasho ku tagay wuxuu sidoo kale sheegay in dalka Saudi Arabia ay walaalahood yihiin wax dhibaato ah ma tusin laakiin Sacuudigu waxa ay doonayeen in ay mar walba noqoto Masar wax jeebkooda iyaga ku jira oo lacagtooda iyaga ay siiyaan Mareykanka iyo Sacuudiga iyo dadka isku taga Imaaraadka Carabta iyo xulafada iyo Israa'iil dhamaantood waxay arkeen in isbedel xoogan halkaas uu ka dhacay marka Maxamed Mursi kacdoonkii dadka ee lagu qaaday wuxuu ahaa kacdoon ay ku baxday 7 bilyan oo dollar oo lacag oo lagu abaabulay dadkii isugu yimid halka loo yaqaano Tahrir Square ama halka loo yaqaano Meydaan Tahrir waa fagaaraha Tahrir ee magaaladaas Al-Qaahira dhammaan arintaas waa arin caana oo runtii dadkan ogeyn hadayda ogeyn waxaa la sheegay in ugu yaraan 80% dadkii aad arkayseen lixaadka lahaa qof walba lacag jeebkiisa la gaarsiiyey si loo dadka Masar dadka reer Masar dad iska fuqaraa runtiina waa dad iska cilmaaniyadu ku badan tahay oo runtii aan dad absil aan ahayn runtiina Maxamed Mursi iyo xisbigiisa ayaga lafkooda xogaa degdeg oo fara badan iyo talaabooyin fara badan oo xagga degdega way qaadeen taasuna way soo dadajisay markiiba in la akhriyo saansaantooda siyaasadeed ee doonayeen in si dabayl wax u bedelaan taasuna caalamka kama shaqeey kareynin markaasi hase yeeshee marnaba day umay qalmin in si loola dhaqmo marka dalalka Carbeed waa far ayagu ay leeyimaadeen mas'uuliyadda maanta inuu halkaas ninkaas u dhinto oo dhibaatada inta loo geysto iyo eedaha loo haystay sidii raqiiska u ahaayeen waxa lagu eedeeyay in uu dad xabsi ka sii daayay xabsi la jabiyay oo dad reer Falastiin ama Hamas ah inuu lu kulaha yaani waa wax iska raqiisa runtii marka la eego waxa kale yaab ahayd in Maxamed Xusni Mubaarak oo 30 sanadood ku dhawaad dalka Masar xukumayay dad aad badan laayay dad aad fara badan ay ku dhinteen gacantiisa 2011 iyo intii ka horeysay in asaga jeelka laga soo saaray ninkana jeelka loo daayay waxa iska garanaysaa in ay tahay siyaasad quraan marka dadka Soomaalida ah ama dawladda Soomaaliyeed marka qaarkood daba orada Saudi Arabia iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta ama maamuladan tribalka ah mar walba Imaaraadka heshiisada la gala horta Carabtu waa siyaasadoodu wata maanta yaani muujinaysa in nin yaani doqonnimo ka weyn ma jirto iyo fadeexad ka weyn in maxkamadaadii mas'uul ku dhinto caafimaad darro awgeed waliba qofka meesha ku dhintay uu san ahayn qof iska caadi iyadoo qof walba uu qiimo leeyahay haddana madaxweyne dhan oo qaranka maamulay in uu hor afaafka iyo gudaha maxkamadda asagoo silsiladaysan uu dhinto dal markaasi dawladnimo sheeganaya oo madax banaani sheeganaya oo ciise iyo qiyam sheeganaya marmarka qaarkood waxaad ogaan kartaa dadka uu waxa ka liita dadka uu ka suga walaaltinimo ee Carab maanta ka suga hiil ka suga hoog ka suga uu ba ka liita
kuwaasoo Soomaali looga karo way noqon karaan yani naxariis darrada halkaas gaarsiisan waxa la yiraahdaa Soomaali xukuumadda riyahaday dib leeyihiin dabadooda ku qarsanahay carab hadii ay ayagu wax isku hayso sida yani mar waxa jirta cadawgaaga xataa inaad iska celiso adiga ceeb ku noqonayso yani maanta umaleemayo xataa maamulada iyo Soomaaliyeed inay taas ka dhici karto xataa kama dhici karto ayaan aaminsanahay inagoo waliba jabhada yani waxyaalaha ay sameeyaan dadka isbaarada dhigta iyo kuwa markaas beelbeelaha isku laaya baa loo karaa wax sameeyaan dawlad ilbaxa oo kumanaan sanadood jirtay dalka Masar waa dal aad iyo aad ilbax ah oo ilbaxnimadii ay in badan ka jirtay ambiyooyin soo xukumeen waana madaxweynihii ugu horeeyay si cadaalad loo doortay marka laga yimaado ambiyadii ee kor uga soo diri jiray ilaahayna rasuul dama hadir carab soo diri maayo Masar soo diri maayo dalka markaas iyo fadeexada halkaas ka dhacdayna waxa ka masuula MBS iyo MBSat baa ka masuula ninka la yiraahdo waxa soo raaca Israa'iil iyo Mareykanka oo dabcan iyo reer Yurub oo ayaguna gacmaha u qabtay dadkii reer Masar gacmaha u qabtay Al-Sisi oo yiri sanka ka garaac marka runtii waxyaalaha iyaab kale maanta waxa weeye kale ee adduunka ka taagan ee maanta ay tahay in laga hadlo oo runtii ay tahay in aad iyo aad looga yani loo daraso waxa weeye maxaa ay ku sameeyaan karaan hogaamiyaasha kale dalalka maxay dalalka kale gaarsiin karaan hadii ninka leeyahay Al-Sisi waa tarik waayo runtii asagu waxa weeye waa nin lacag oo la siinayo isla markaana wax loo yeedinayo dhammaan siyaasad xumadan iyo waxaan uu sameeyo waxay ka tahay runtii arin aad iyo aad u liidnimo oo runtii aad iyo aad u xun dadkiisa waxa suuqay Rabac al-Adawiya meeshii loo jeeday dad badan ku laayay dhiiga dadkiisa waa nin kursiga ku haysta laakiin waxa ka sii liita oo ka sii daran runtii dadka maanta u arka dawladnimo carbeed inay jirto dadka u arka qiyam carbeed inuu jiro ama qiyam dalal caalamul islaam ka talinaya inay jiraan ama runtii wadamada carabta maanta xukaamta ka jirta waa maafiyo dadku waa laga yaabaa inay fiican yihiin haday fiican yihiin waan arki doonaa reer Masar jawaabta ay ka bixiyaan iyo bal inay arintaasi ay ka dhidiyaan ama ay ka gadoodaan waan arki doonaa daawasha qiimaha leh waxaan runtii u rajaynaynaa ninkaas marxuumkaas in Ilaahay u naxariisto runtiina dadka Soomaaliyeed aad iyo aad u dareemeen waxaanan hubaa dadka Soomaaliyeed inay dad runtii hadii ay jirto dhadhan islaamnimo waxa jira dad maanta doonaya inay Soomaali islaamnimada baraan ama ay doonaya inay carab inooga soo qaadaan diinta inooga soo qaadaan waxaan aaminsanahay baxathiyada anigu aan sameeyay ama yani daraska aan sameeyay cilmi baarista dhinaca Soomaalida Soomaalidu waligoodii allahood waxay ahaayeen muslim Soomaalidu intii ay jirtay waxa ay muslim markii ay carabtu ay caabudayeen dhagxaanta ay asnaamta ay xaramka ay dhagxaanta agdhigteen ay dhagxaanta caabudayeen Ilaahay subhanahu naxariis nabadgelyo korkiisa ka yeelay u soo diray inagu najaash bayna xukumayay dad muslimiin oo rahan diinta Nabi Ciise xaq ahayd ee injiil bayna haysanay yani waligan lama sheegin qof Soomaali oo dhagax caabudo lama sheegin ayagana waxay ahaayeen dad ayagu qabiil isku laaya dhagxaana caabudo martimir ka dhigta Ilaahay baa naxariis uga dhigay Nabi Maxamed عليه السلام النحريس اللي بتقول لك هياله كدبنا waxay ka tageen diintoodii maantana markay diintoodii ka tageen ayagiiba iscunay kadibna waxay basaaseen oo kala ordayaan dalalka qarbiga iyo dalalka markaasi dhulkoodii haysta iyo dadkoodii kala maamulay oo kala ordayaan marka qodobka ugu dambeeya daawasha qiimaha leh dhinaca diblomaasiyadda dabcan madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu amar ku bixiyay oo ku siiyay waaxda dhinaca socdaalka dalka Mareykanka in ay nadiifiso isla markaana ay qalqabato qof kasta oo Mareykanka jooga oo ay u dhagan tahay in la taxilo arintan waxa laga dad badan Soomaaliya inay khusayso waa dhinaca sharciga wuxuu yiri hay'adda dhinaca socdaalka iyo ilaalinta ayuu yiri xuduudaha ee dalka Mareykanka waxaan ku amrayaa ayuu yiri in toddobaadka dambe ay bilaabaan malaayiin qof oo si sharci darro ah dalkeena u jooga kuwaas oo ka faa'iideysanaya ayuu yiri sharci darradooda gudaha dalka Mareykanka in la nadiifiyo oo dalka laga eriyo ayuu sheegay Mr. Trump wuxuu barta Twitter-ka ku qoray inuu amarkan ku siiyay waaxda dalka Mareykanka ee u qaabilsan ayuu yiri dabcan ayuu yiri dawladda dalkaasi isagoo sheegay in ay taa ugu leeyihiin in si xoogan dadkaasi loo eriyo magaalooyin dhowr ah oo kamid ah gobolka California dalka Mareykanka ugu weyn ayaa dadka ugu baaqay in ay dhuuntaan hase yeeshee waaxda socdaalka dalka Mareykanka iyo waaxda arrimaha amniga gudaha dalka Mareykanka Homeland Security ayaa waxa ay sheegeen in ay taasi tahay ay yiraahdeen dambi hadii la dhuunto waxayna sheegeen in qof kasta oo dhuumanaya iyo mid ordayo jidka laga helo la tarxiili doono Stephen Miller oo asagu ah kusimaha waaxda dhinaca arrimaha gudaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu cagta mari doono cid kasta oo sharci darro Mareykanka ku joogta horeyna waxa isku casilay waaxdii gabadhii haysatay waaxdan Christine Ninsel oo iyo ku-xigeenkeedii Ronald Vital kuwaas oo sheegay inaysan ayagu doonaynin inay ubad iyo waalidkood kala geeyaan ama ay dad jiidaan daawasha qiimaha leh faafinta wararka iyo ka doodista arrimahan dhinaca wadalka carabta iyo waxaan ka dhacaya iyo masiibadan caalamka islaam maanta haysata waxa xaqiina inaad falanqaysaan amaana